warkayga habeenkan caawa waxaan idinku haynaa waraysi maanta uu siiyey saxaafadda Fuad Yusuf Ali waxa uu kaga waramay xal caafimaadkiisa iyo sida loola dhaqmay tan iyo inta uu ku jiro xabsiga dhexe ee reydka ee Gabood waxaana uu yiri satani horta walaal magacaaga noo sheeg Fuad Yusuf Ali waxaan ku weydiin lahaa arta marka ugu horeysa xaaladaada caafimaad harta bal iga waran waxa weeye xaaladeyda caafimaad xaggan waxaan soo galay Levantian markaan soo galay cellule baa ligay go yar baa leysii après 2 jours meesha markaan ku jiro waxa lugaha ayaa googay wadarka kaliis aan leeyahay dermatolog baan u baahanahay jirkayga eegta leele ma hadli jiro reerkayga inaan la hadlo oo ku iraahdo Gabood baan ku dhex jiraa dadkaygu way doonayeen war dadkayga bal aan u sheegay inaan Gabood ku dhex jiro waa la ii diiday telefoon nabarada sheegaysid halkii kaaga yimaadeen walaalkayow nabaradani waxaan leeyahay inuu problem allergic baan leeyahay hygiene ka imanaysa marka way ugu dhaceen waqti 2009kii way ugu dhaceen waan ka bogsaday laakiin se halkan marka dib u galay waxaan dib ay igu soo baxeen waan u sheego waxaan ku yiri war doctor ba iswaaniyin jirtay aan Huda Ali baa la dhaw waa dermatolog waxay fadhiistaa biltiye war ii dir Ilaahay ka baqo imika wax doctor wad la kulantay ma jira laba doctor ba shalay yimiday doctor Ilyas Noor iyo Xamadu ayaa yimiday marka wax xaaladii oo dhan way arkeen waxay ku yiraahdeen waa inaan ku dirno bilon oo ma aragtay lagu soo baaro waxaan ku yiri Fuado waxa la yigay maxkamadda markii lagu soo xiriirey muddo intee leeg dabadeed baa maxkamadda dib lagu geeyay maalintii Levantian Avril baa xagan la keenay oo security national ka keeneen le 22 maalintii ku xigtay waxa la geeyay parkiga dambiyaashidii buu ii akhriyay wuxuu igu yiri ma avocat baad u baahan tahay mise maxay hadana déclaration ma sameeyay avocat baan u baahanay baan yiri avocat-gi ça lui a pris plusieurs jours sidoo ila kulmi lahaa oo ma aragtay aniga xaaladeedu soo arki lahaa waxaan kulanku weydiiyay faamiga reerkaagu ma ku yimaadeen may imika way yimaadeen daraad toole iyo shalay way yimaadeen waa lay ogolaaday daraad iyo shalay bay yimaadeen inamadan penitentiary wax jirdila wax dhibo kale ay ku geysteen ma jirtaa may ma jiro hanjabaad iyagu iska badaa ay soo galaan inay ila hadlaan ba ka madnuuc ahayd anoo saliidus ku jira ilmay hadliinba waxaan ogaanay inaad telefoonkaaga shaarjaysanayso sariirka agtaada raalonsh lagu soo warun xaqiijinaysaa taas warun askartaan ku wada